Assalaamu calaykum walaalayaal. Muuqaalkeenan maanta waa muuqaal aan idinkula wadaagi doono soo koobidda iyo falanqaynta filim kale oo dhanna daraamo iyo qosol ka ah, dhanka kalena ah filim ka mid ah filimada loo yaqaan science fiction-ka. Filimku waxa uu ku bilaabanayaa nin buuran oo faamilkiisa meel bannaan farxad kula qaadanaya, waxaana la joogta xaaskiisa oo ah mid aad caato u ah, waxayna ciyaarsiinayaan wiil ay dhaleen oo lagu magacaabo Constantine. iyaga oo jawigan wanaagsan iskaga jira ayay gabadhu mar kaliya arkaysaa tuwaal si iskii ah cirka ugu duulaya. wax yar kadibna garaafatiga ama cufus-jiidadka dhulka ayaa si lama filaan shaqada u joojinaya. dabcan haddiiba ay dhici lahayd in cufus-jiidadka dhulku uu shaqada joojiyo, waynu sawiran karnaa waxa dhici kara mar qura ayay wax walba oo dhulka yaalay bilaabayaan inay cirka u duulaan oo ay hawada sabeeyaan, marka laga reebo ninkii buurnaa oo aan isagu halkiisii ka dhaqaaqin. waxaynu arkaynaa ninkii buurnaa oo wiilkiisa gacanta haya iyo gabadhii oo iyana wiilka gacanta sii haysata, isagoo oo ninka buuran isku dayaya inuu badbaadiyo, balse nasiib darro wiilka yar mooyaane xaaskiisu ma badbaadayso oo hawada ayay raacaysaa. marka xigta waxaa layna tusayaa ninkii buurnaa oo si naxdin leh hurdada uga soo boodaya, isagoo weliba neeftuuraya. dhacdada oo Constantine aabihii ku riyoonaya waa dhacdo dhaba oo qoyskani qabsatay muddo 20 sannadood ka hor, waqtigaas oo uu dhacay shil diyaaradeed oo aad u weyn oo saameeyay garaafatiga dhulka. dabcan waa sida ay filimka u dhigayaan, waynu ogsoonnahay inaan cufus-jiidadka Ilaahay dhulka ugu talagalay aanay diyaarad yari wax yeeli karin, balse inagu waxa aynu raacaynaa sida uu filimku u socdo. aynu ku soo noqono filimkeennii. shilkaasi waxa uu sababay ay leeyihiin in wax kasta oo ka yar 120 kiilo oo dhulka yaalayba ay hawada sabeeyaan. muuqaalka xiga waxaynu arkaynaa Constantine iyo aabihii oo jikada wax ku wada cunaya. miiska waxa ay ku dhajiyeen gidaarka si uuna u duulin. sidoo kale waxa guriga u dhex yaala qalabka lagu cabiro garaafatiga. waxaynu kaloo arkaynaa in xataa buugaagta makhaafada ku jirta ay xadhig adag ku tigtigeen si ayna u duulin. TV-ga waxaa ka soo gelaya nin ku warramaya inay maanta tahay sanad guuradii 20aad ee ka soo wareegtay maalintii shirka masiibada ahi dhacay. waxa kale oo uu sheegay wariyuhu inay macquul tahay maalmaha soo socda inay shilal sahlan dhacaan, waxa uuna kula taliyay dadka oo dhami in ay taxadaraan. intaas kadib waxa uu dadka ka codsaday inay hal daqiiqo aamusaan si loo xuso dadyowgii maalinkaas musiibada ku halaagsamay. wax yar kadib waxaa hawada u duulaya dhammaanba weelka ay wax ku cunayeen Constantine iyo aabihii iyo dhammaan alaabihii ka agdhowaa. waxaynu arkaynaa Constantine oo gacmaha miiska ku adkaynaya si uuna isaguna hawada u raacin. inkastoo uu dadaal badan sameeyay, haddana uu ku guuldarraysanayaa inuu ku sii nagaado dhulka. saqafka sare ee guriga ayuuna ku dhegayaa. odaygan oo arrintan soo noqnoqoshadeeda aad u karahay ayaa wiilka u sheegaya inuu soo dhicitaan isku diyaariyo, maadaama oo uu mashiinka garaafatiga daari doono. Constantine ayaa indhaha isku qabanaya, waxaana mar kaliya soo daadanaya wax kasta oo saqafka sare saarnaa. oo waa kaas odaygii buurnaana madaxa gacmaha saaray isagoo ka cabsi qaba inay bir hawada u duushay madaxa dayaamiso. Constantine oo dhulka ku soo dhacay ayaa xanuun la barooranaya, isagoo odaygii buurnaana gidaarka ku celinaya sawirkii xaaskiisii oo markii hore isaguna saqafka ku dhegay. kadib Constantine aabihiisii buurnaa waxa uu bilaabayaa inuu miisaankiisa cabiro ka hor inta uuna dibadda u bixin. waxa uuna dareemayaa nafis marka uu xaqiiqsado inuu weli ka badan yahay 120 kiilo, maadaama uu og yahay haddii uu intaa ka yaraado in isagana hawada loola bixi doono. odaygu waxa uu xidhanayaa jaakad uu ku sii dhex ridanayo kubad bir ah oo culayskeedu yahay 20 kiilo si uu miisaanka ugu siyaadsado. waxa uuna wiilkiisa ogeysiinayaa inuu shaqadii aaday, isaguna uuna guriga ka soo bixin. Constantine maadaama uu yahay mid dhuuban oo miisaankiisa ka hooseeya 120 kiilo, looma ogola inuu dibadda u baxo. sidaa darteed ayuu maalin walba qaataa diirad yar isagoo daaqada dadyowga burburan ee dibadda socsocda ka daawada. maanta isagoo sidii caadada u ahayd samaynaya ayuu daaqada ka arkayaa nin buuran oo boolis ah kaasoo la rafaadsan bac uu sitay oo hawada u biibi rabta. dhanka kale markuu fiiriyo wuxuu arkayaa aabihii oo la sheekaysanaya 2 dumar oo naaxnaaxsan. Constantine waxa uu aad uga caajisay gurigan aanu 20 sano ka bixin. waxa uuna sidii ciyaalka oo kale weli ugu ciyaaraa alaabaha guriga yaala.
kadib waxa uu soo aadayaa dhanka daaqadda. waxa uuna arkayaa gabadh buuran oo aad u qurux badan, isagoo iska daawanaya quruxda timaheeda ay hawadu kor u jiidayso ayay mar keliya u gacan haadinaysaa. kadib Constantine waxa uu dareemayaa xishood dheeraada maadaama aanu weligii gabadh la hadlin. waxa uuna isku dayayaa intuu maryo xidho inuu la hadlo. kadib waxa uu waraaq ugu soo qorayaa ereyga hello, balse wuu ka xishoonayaa oo ma tusayo gabadha fariintaas. habeenkaas markii uu aabihii shaqada ka soo laabtay, Constantine waa laga dareemi karayay inay maanta wax ku soo kordheen. odaygu weli waxa uu wadaa miisaan tijaabintiisii, balse markan aad buu u warwarayaa maadaama uu miisaankiisu hoos u socdo ayna macquul tahay inuu dhowaan 120 kiilo ka yaraado. dhanka kale, ninkii Constantine ahaa waxaa ku dhacay jacayl lixaad leh, waxa uuna marba iskaga riyoonayaa isagoo gabadhii buurneed la damaashaadaya. intuu gam i waayo ayuu soo qabanayaa joornaal sariirtiisa ag yaalay, kadibna waxa uu arkayaa ciwaan ay ku qoran tahay Getting Fat in a Healthy Way. marka uu sii akhriyana waxa uu ku arkayaa inay ku qoran tahay in cunista hamburger aad u fara badan ay tahay sida ugu fudud ee aad miisaankaaga u kordhin karto una dhaafin karto 120 kiilo. Constantine maadaama uu cuqdad ka qaaday dhuubnaantiisa uuna rabo mar uun inuu dibadda u baxo si uu gabadha buuran ula soo sheekaysto, waxa uu soo diyaarsanayaa hamburger aad u fara badan. waxa uuna bilaabayaa inuu cuno, inkastoo ay ku adag tahay inuu waxaasoo dhan dhammeeyo, haddana si daran ayuu isugu qasbayaa si uu mar uun u naaxana dhib kasta wuu u mari karaa. wax yar kadib waxa uu ku xanuunsanayaa cuntadii uu isku daldalay. aabihii ayaana guriga ku soo laabanaya ninkii Constantine ahaa oo sariirta xanuun la dul saaran. marka uu soo kaco waxa uu si toos ah u tagayaa miisaanka, isagoo aad u farxaya marka uu arko in miisaankiisii uu ka batay 60 kiilo. kadib waxa uu maqlayaa guuxa gaadhiga ay la socon jirtay gabadhii uu jeclaaday. waxa uuna maanta ku dhiiranayaa inuu tuso warqadii uu shalay kala xishoonayay. waxa uuna magaciisa ugu soo qorayaa waraaq isagoo daaqadda ka tusaya. iyana way qoslaysaa oo u gacan haadinaysaa. Constantine aabihii waxa uu talaajada cuntada ku dhajiyay waraaq ay ku qoran tahay inaanu Constantine wax cunto ah cuni karin ilaa uu odaygu ka soo laabto. isagoo arrintan la murugsan ayaa jacaylkiisii buurneed maalintii saddexaad shaqadeedii imaanaysa, balse uma baxaayo maanta. iyana waxay kor u soo eegaysaa dabaqii uu ka soo daawan jiray iyadoo ka murugaysan maqnaanshihiisa. intaas kadib Constantine ayaa isku dayaya inuu dibadda u baxo. waxa uuna sii riixayaa talaajada oo uu isku xidhayaa si aysan hawada ula tegin. kadib aabihii ayay albaabka si lama filaan ugu kulmayaan. odayga oo cadhaysan ayaana Constantine dib ugu soo celinaya guriga. odaygu waxa uu dareemayaa inuu wiilkiisu jacayl lixaadle u qaaday naagta buuran ee ka soo horjeedkooda ka shaqaysa. waxa uuna raadinayaa xal uu wiilkiisa ku badbaadiyo maadaama uu og yahay inuu maalin uun dibadda u bixi doono, sidaasna ay hawada ula tegi doonto. waxa uuna habeenkaas ikhtiraacooda dhammaystirayaa kaba aan qofkii xidha hawadu qaadi karin oo uu ku rakibay qalabka garaafatiga. habeenkaasna waxa uu ku dulgamayaa kursigii uu ku shaqaynayay. waxa uuna ku riyoonayaa wiilkiisa oo sidii hooyadii isna hawada u raacay. marka uu soo baraarugo ayuu arkayaa in mashiinkii garaafatigu damay, alaabtii ag taalay oo dhammina saqafka ku dhegtay marka laga reebo kabihii uu wiilkiisa u sameeyey. subaxnimadii markii ay miiska quraacda isugu yimaadeen ayuu odaygii wiilkiisa guddoonsiinayaa kabihii uu soo sameeyey. waxa uuna u sheegayaa inuu imika dibadda u bixi karo. Constantine kabihii ayuu xidhanayaa. kadib aabihii ayaa daminaya mashiinka garaafatiga balse uu u hubiyo in kabuhu ay shaqaynayaan iyo in kale. kadib marka ay xaqiiqsadaan inay ku guulaysteen ayuu dhabarka ugu xidhayaa kubadihii biraha ka samaysnaa ee culculusa si ay miisaankiisa u sii siyaadiso. isaguna marka uu dibadda u baxaba waxa uu dhaqaaqayaa dhanka iyo gurigii gabadhii uu caashaqay. aabihii waxa uu ka soo daawanayaa daaqadda. gabadhiina sidoo kale waxa ay ku sugaysaa dabaqa gurigooda iyadoo halkaa ka soo daawanaysa. kadib markuu arko inay ka sarreyso ayuu daminayaa mashiinka ku rakiban kabaha uu xidhan yahay si uu u duulo. isagoo aabihiina halkaa ka soo qaylinaya oo ku leh, waad dhimanaysaa wiilkaygiiyow haddii aad sidaa samayso, ka joog. balse dheg jalaq uma siinayo ee waa uu daminayaa mashiinka. hawada ayaanu u duulayaa. waxa uuna iska niyeysanayaa jacaylkii sii buurnayd oo garbaha haysa oo ka badbaadinaysa inuu hawada galo. dhammaadka filimka waxaynu arkaynaa Constantine oo ka mid noqonaya malaayiinka qof ee diyaarad la'aanta hawada u socdaalay.
waxa uuna sidaa ku waayayaa jacaylkiisii buurnayd ee uu darteed naftiisa halista u geliyey. filimkani waa khiyaali sawiraya waxaa dhici kari lahaa haddii dunida hal mar laga waayi lahaa garaafatiga amaba cufus-jiidadka. intaas ayaynuna ku soo koobaynaa. hanaga ilaawan daawada inaad subscribe noo saarto channelka si aad ula socoto muuqaalka la mida iyo weliba kuwa ka sii xiiso badan. mahadsanid.